kooxda Al-Shabaab ayaa beenisay hadal ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Maxamuud Kayda maruu la hadlayay idaacadda BBC qaybteeda Focus on Africa taasoo uu ku sheegay in ciidamada Soomaaliland ay la dagaalamayaan argagixiso iyo maleeshiyaad ku xidhan kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay isla markaasina xaqiijisay in hadalka ka soo yeedhay Soomaaliland uu yahay mid aan sal iyo raad lahayn sida lagu baahiyay Somali Memo oo kamid ah warbaahinta taageerta kooxdaasi. Al-Shabaab ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inaysan aqbalaynin in magaceeda laga dhigto marmarsiyo lagu banaysto nafta maalka iyo sharafta reer Laascaanood siday hadalka u dhigaan. Waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Laascaanood dagaal u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo dad abaabulan oo hubeysan. Dagaalka ka socda magaalada Laascaanood oo maanta galay maalintiisii shanaad ayaa waxaa ka qaxay deegaanadaasi dadyowgii ku noolaa iyagoo u qaxay magaalooyinka iyo deegaanada u dhow gaar ahaan magaalooyinka Garowe, Cerigaba, Burco iyo sidoo kale kuwa la halmaala.